shir dhaqameedka islaax saddex oo ka socday muddo 5 cisho ah deegaanka jaamac liibaan ee gobolka Togdheer ayaa la soo gabagabeeyay Cabdirasaaq Xaaji Axmed oo kamid ah shirgudoonka shirkani oo ugu horeyn ka hadlay madasha ayaa halkaasi ka akhriyay qodobada ka soo baxay shirkani. qodobada ka soo baxay shirka waxay kala yihiin in lagu dhaqmo shariicada islaamka dadkana la faro. beeshu waxay isla qaadatay midnimada wada jirka Abubakar Axmed waxa beesha Jaamac Ali ku guuleysatay inay isturxaan saarto isna saamaxdo iyo qoomaha wixii jaaifo gaara la wada bixiyo. waxa beeshu ku heshiisay in sakada la soo ururiyo si wada jira gudina loo saaro laguna bixiyo cidda u xaq leh ee ugu mudan ee beesha dhexdeeda ah. in beeshu samaysato sanduuq dhaqaale oo ay danaheeda ku maamusho in gudi loo saaro arrimaha ku saabsan wax ka qabadka shilalka gaadiidka ayna soo saaraan siyaasad ku waajahan wax ka qabadka shilalka haddii alla idmo. in beeshu taageerto dhaqaalana ku bixiso waxbarashada deegaankeeda iyo ilaalinta deegaanka iyo deris wanaagga. in beeshu iska kaashato ka hortagista mukhaadaraadka sida qaadka sigaarka uuriga. caaqil Muuse Xaaji Saleebaan oo caaqilka beesha shirkani qabsatay oo isna madasha ka hadlay ayaa soo dhaweeyay martida lagu casuumay xiritaanka shirkani. waxaan aad iyo aad u soo dhaweynay ergadii aanu u yeernay aan soo ajiibtay. waxaan leeyahay maarta xaq Ilaahay leedka ajiib insha Allah bidmillaahi kariim. aan waxbarashada xoojino waxbarashada aan Abubakar Axmed xoojino talada hamidha ka noqon kala jacaysanaya jiri. xildhibaan Axmed Cabdi Dimbil siyaasi Muuse Askar Guuleed siyaasi Cabdullaahi Yuusuf Axmed cuqaal iyo waxgarad kalooyana madasha ka hadlay ayaa soo dhaweeyay qodobada ka soo baxay shirkani waxaana ku dardaarmeen in meel looga soo wada jeesto sidii loo horumarin lahaa waxbarashada deegaanka. qodobada shirka lagu soo saaray inay midho dhalaan oo maartay meel maraan ayaan Ilaahay uga baryeynaa insha Allah ta'ala. waxbarashadu in wax laga qabtaa bay u baahan tahay kuma filna oo kaliya la yiraahdo meel baa iskuul daare ka dhisan tahay laakiin haddii aan macallimiintii dhigaysay la helin oo tayeesneed aan la helin iskuulkaasi wax ku ool ma aha iskuul furiyana lama oran karayo. wax badan baynu u baahanay inaan wada qabanno waxaan la qodobka waxbarashada wada shaqeyno deegaankeenu aad iyo aad buu daba dhacsan yahay haddaynan waxbarashada wax ka qabanina ummadaha ay la noolahay lama noolaan karo ama lama tartami karo. wixii aynu ka qaban karno arrimaha duruufaha taagan aynu wax ka qabano waxbarashada ugu horeyso. waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa ardayga halkan shirka ka waday ee sida qiimaha leh ee maamuus kale shirka u soo gabagabeeyay qodobada halka ka soo baxay ee ka akhriyeenna waan taageeraynaa waan soo dhaweynaynaa. dhulka qaar baa iskuulaadku qabiil ka yihiin qaar bay dhisan yihiin oo aan la furin intaasiba xil iyo mas'uuliyad baa inaga saaran dhammaantiin waxaan isku ognahay midnimo waxaan isku ognahay gacmaha inaan isku qabsanno wax kasta. dhammaan waxaan taageersanahay wixii ka soo baxay shirka ee laynoo akhriyay intaba waa taageersanahay. waxaan rajaynayaa beelweynta Abubakar Axmed inay kaga wada dayato ku wada dhaqanto maadaama reerkii hormuudka u ahaa uu soo saaray ujeedooyinka quruxda badan leh. qoladan shirkan inoo yeedhay reer Jaamac Ali aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa martiqaadka inoo yeedheen waan uga mahadcelinaynaa. shirkan ay qabsadeen iyo qodobaday soo saareen waan taageeraynaa waayo waxa uu aanay meel ka soo baxa ummaddu way iskaga dayaata. waxaan aad iyo aad ugu tahniyadeynaynaa oo u taageeraynaa go'aanka quruxda badan leh ee ka soo baxay shirka. barigii Ilaahay baridina idinka aqbalo annaguna oo idin ducaynaynaa Ilaahay idinka aqbalo. beesha shirtay ee ducaysatay waan u hambaliyeynayaa ilaahayna go'aamadii ay soo saareen kuwii u hirgala ee dhammaantood baynoo hirgalay Allah ka yeelo innagana Ilaahay naga yeelo kuwii ku dayda. Jaamac Ali Abubakar Ilaahay har sharfo waxaan leenahay aad iyo aad baan ugu ducaynayaa u soo dhaweynayaa una hambaliyeynayaa. inta qodob ee halka ka soo baxday waan soo dhaweynayaa si mug iyo miisaan laan u soo dhaweynayaa. waxaan jecelahay talweynaha reer Abubakar Axmed inuu kaga daydo inayna wada qusaysa dhammaanteena haddii aynu hirgelino
oo aynu ku dhaqanno waxaynu doonaynaa inuu hagaagayaan akhriya iftiinba ayaa shirkan ka soo baxay aad iyo aad baan marka hore u baarigaya u taageerayaa إلهي ويحبك سبحانه وتعالى رجي الدمر الله هينو شافيه إلهي أمني أمان هينا سيو كاونا سينا إلهي هينو تامير دولة الله هينو بركي جامع سليبان عمر بولشة تيفي مقالة برعو